kulankan oo lagaga hadlayay aafada tahriibta oo ay soo qabanqaabisay hay'adda caalamiga ee IOM waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday hay'adaha dowladda, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland Mudane Cabdirashiid oo madashan hadalka furay ayaa waxa uu ka warramay dadaalada iyo siyaasadda qorshaha xukuumaddu ay ka leedahay tahriibta iyo dhalinyarada dalka. waxaana sidoo kale uu sheegay in qorshaha xukuumadda ee ku wajahan dardargelinta iyo dabargoynta tahriibtaasi Somaliland dhalinyarta intii baxday wixii la soo celin karayay fursad loo helo lagu soo celiyo kaalin badan baa runtii dawladdu ka qaadatay iyadoo hay'adaha caalamiga runtii la kaashanaysa kuwa hadda jooga caqabadihii ay ka baxayeen tallaabooyinkii wax laga qabanayo baa socda caqabadaha waxa kamid ah dhalinyarta shaqo la'aanta ay aad ugu badan waxay dawladdu sanadkii hore sameysay weydeen barnaamijka shaqo qaran oo 1500 dhalinyaro runtii hawlgeliyay waxa socda hadda siyaasadihii iyagana wax laga qabanayay shaqo la'aanta oo ay ugu horeyso in shaqo carbin badan dhalinyartii la siiyo si ay shaqadii runtii u helaan waxa kamid ah siyaasadii shaqo abuurka oo imka la gabagabeynayo oo qasab ka dhigaysa ama sheegaysa meelaha ay tahay in la maalgeliyo ee shaqo abuur fara badan sameynaya marka dadaalo fara badan baa runtii socda dhalinyarteeni baxaysay dadka imanaya waddankeena soo socdaalaya waddankeena imanaya dhibaatooyinka faraha badan leh ee dalkoodii ka dhacaya imanayana dawladdu iyadoo xeerarka caalamiga ah hirgelinaysa dastuurkeena runtii ixtiraamaysa way soo dhaweysaa waxa kale oo dawladdu iyaduna wadaa in siyaasadaha la sameeyo ee ku wajahan wax ka qabanaya caqabadaha dadka soconaya in la waafajiyo wixii aan waafajisteen xeerarka caalamiga ah marka maalintan waxaynu maanta markaa kan isku nimid iyadoo maanta maalintan la xusayay ballaynu eegno caqabadaha jira marka dhalinyar fara badan oo hay'adaha dawladda iyo ururada maxalliga ka socda ayaa waxay ka hadli doonaan caqabadahaas iyo dawladdu waxay ka qabatay iyo shuruucda waddanka waxay ka leeyihiin madashan oo si heersare loo soo agaasimaya waxaa lagu soo bandhigay filim ka hadlaya dhibaatada tahriibtu ay leedahay iyo rajo la'aanta ka dambaysa hadiiba aad badaha marto geesta kalena madashan waxaa la isku weydaarsaday dood cilmiyeed ku saabsan oo lagu falanqeynayo dhibaatada tahriibta doodan waa isweydaarsanayeen wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska dalladda dhalinyarada Somaliland ee Soonyo hay'adda laanta socdaalka iyo hay'adda IOM waxaana madashan goobjoog ka ahaa dhalinyaro waayaaraga oo iyagu hore u tahriibay isla markaana ka soo laabtay markii ay ogaadeen dhibaatada uu leeyahay waddan shisheeye oo waddankaagu lama huraan yahay dhibaatada tahriibta haddii aan ka sheekeeyo 1 iyo 2 iyo 3 ma soo koobi karayo laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa in wacyigelin badan iyo tabaabusho badan aanu ka wadi doono dhammaan dhalinyarteeda soo noqotay sidii aan isku kaashan lahayn oo bulshada garanaysa wax ugu sheegi lahayna inaanu ku tala jiro wacyigelinta kale ee iyaduna in bulshadeeda aan u soo wada arkay ayaa waxa in wadamada kale aan ku soo arkay dad aad u shaqaysanaya oo shaqadooda si fiican u wata IOM markasta waxay boorisaa ama ay soo dhaweysaa socdaalka sharciga ah sida inuu qofku haysto dokumentigiisa haddii uu haysto passport ama visa tulgal IOM mar walba migrationku way boorisaa laakiin iyagii baa kala ah socdaal markii laga hadlayo waa laba qaybood mid sharci ah iyo mid sharci darro ah midka sharci darrada ah waa inuu qofka haysan wax dokumenti tusaale ahaan intuu waddan ka tago inuu waddan kale iska galo isagoon haysan sharcigii iyo sifadii ku tagi lahaa anagu dalladda dhalinyarada Somaliland Soonyo de processka guud ee qaranka oo dhan wado ayay qayb ka tahay sidii dhalinyarada Somaliland xirfado shaqo abuur loogu sameyn lahaa xirfad loogu sameyn lahaa ay ku shaqo galaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhalinyaradu ay qaban karaan waxa weeye marka koobaad in la sameeyo baaris cilmi ku salaysan oo lagu faaqidayo waxyaabaha keenaya shaqo la'aanta waxay dhalinyaro badan oo reer Somaliland u shaqo laayihiin wasaaraddu waxay sameynaysaa oo u qorshaysan 2020ka sanduuqa horumarinta dhalinyarada iyadoo la kaashanaysa ururada maxalliga ah ee ka mid yihiin ururka Soonyo iyo sidoo kale dawladda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha marka kulli waxa muhiim ah in dhalinyarteena aynu abuurno xirfado dhalinyarada waxaan ku oran lahaa inta khatarta inta lagu bari lahaayeen waddankooda inay aaminaan isku dayaan inay ka shaqaystaan Roma maalin laguma dhisin inay waddankooda business yar qaar askar noqda iyo qaar macallimiin noqda iyo qaar maaragtay xoogsadaba in waddanka aaminaan